السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي halkani maanta waxaan kaga soo jeedinayaa barnaamijkeena caafimaadka waxaan maanta halkani kaga hadli doonaa caabuqa ku dhaca xaniyaha kadibna keeno in xanintu ay shuuqdo ama baabado caabuqaasi waxaa loo kala qaadaa laba qayb mid xaninta laftirkeeda ku dhaco oo loo yaqaano otitis-ka mid ku dhaco tuubada shahwada oo loo yaqaano epididymitis-ka marka ay u badan tahay labada meelba in uu caabuqani uu ku dhaco labada meel buu ku dhici karaa jawaabta ayaa taas ah oo loo yaqaano ama xanuunkani caabuqaasi loo yaqaano epididymolytiska badanaa caabuqani hal xinin ayuu ka bilowdaa laakiin labadaba hal mar wuu ku dhici karaa waxaana badi keena infectionka ka yimaado dhanka kaadi mareenka ama infectionka dhanka ka yimaado galmada infectionka kaadi mareenka oo xumaaday wuxuu u keenaa caabuqa xiniyaha qaasatan bakteeriyaha keena ayaa loo yaqaana E. coli-ga cudurada lagu kala qaado galmada waxa waayo kuwa ugu badan ee keeno caabuqani qaasatan cudurada jabtada iyo chlamydia sidoo kale caabuqa viruska qaasatan midka keeno mumps viruska waa midka ugu badan oo maaragtay caabuqani xiniyaha keeno jugta sidoo kale waxa ay kamid tahay waxyaabaha keeno caabuqani qaasatan xilliyada ay ragga banooniga iyo maaragtay biskil wadida ay maaragtay ku hol jiraan qalinka lagu sameeyo qanjirka ragga ee prostate-ka sidoo kale wuxuu keenaa asagana caabuqani sida sababtu ku imaadana waxa waaye qalabka la isticmaalo haddii nadaafadooda iyo heer sare ahayn way ku keenayaan yuu ku dhacaa xanuunkani ama yuu saameeya xanuunkani waxa uu aad ugu badan yahay ragga u dhexeeyo 15 sano ilaa iyo 30 sano sidoo kale ragga da-dooda ay weyn tahay oo 60 sano kor ka jiro uu ku dhacaa xanuunkani astaamaha lagu ogaado ama xanuunkan lagu garan karo badanaa xanuunkani si dhaqsi ah ayaa lagu dareemaa calaamadihiisa ama laba maalin gudahood isla markiiba qofku wuxuu dareemayaa qoraha xaniyaha oo soo barro xanuun oo iyo maaragtay danqasho oo ziyaado ah inuu dareemo hadduu xanuunkani uu ka dhashtay marka xanuumada kor aan ku soo sharxay sida maaragtay xanuumada kaadi mareenka ku dhaco sida maaragtay xanuumada kaadi mareenka oo astaamahooda aad ku garani kartid maalan maaragtay inaad dareentid kumaarkii oo ku xanuuno gubasho oo dhanka kaadada kaaga timaado ama kaada gubasho dhabar xanuun oo kumaarkii oo zaid ku xanuuno waxaan oo idil waxay la jiraan xanuunkaasi sidoo kale caabuqa hadduu ka yimaado dhanka galmada waxaa maaragtay lagu kala qaado ama galmada uu kaaga yimaado dhacaan oo ibti hore ka yimaado aad dareemaysaa hoosti qanjaradii hoose oo kusoo barro sidoo kale waad dareemaysaa laakiin caabuqani xiniyaha marka uu bilowgu yahay waxaa lagu yaqaanaa qandho iyo maaragtay xanuun ziyaado oo qofkii uu la miir daboolmi karo iyo xaalada qaar ah sidee marka lagu baari karaa aad ku ogaani kartaa xanuunkani inuu jiro iyo in kale baaritaanka adada iyadoo la fiirinayo maaragtay haddii aad samaysid baaritaanka adada ah waxaad ogaanaysaa in maaragtay caabuqa infectionka kaadada uu horaan ku hayay uu gudbay baaritaanka dhacaanka ibta ka yimaado oo dhanka galmada kaaga yimaaday haddaad samaysid oo dhacaankaasi la qaado oo la baaro waxaad ogaani kartaa sidoo kale in uu maaragtay la ogaado xanuumada jabtada iyo chlamydia sidoo kale computerka scanka loo yaqaano oo double ultrasoundka asagoo fiirinayo xididada soo galo qoraha ama xiniyaha barar iyo maaragtay hadday shuuqmeen iyo haddii maaragtay biyo ay ku jiraan marka xanuunkani sidee loo daaweyni karaa xanuunkani marka waxaad ku daaweyni kartid waxaa waay haddii uu jiro oo la xaqiiqsado daawooyinka loo kala yaqaano maaragtay qalajiyaha haddii cirbad ay tahay iyo haddii maaragtay kaniini ay tahay labadaba waa in lagu daaweeyo daawooyinkani waxaa kamid ah ciprofloxacinka levofloxacinka iyo noocyada kamid ah ama maaragtay gaarka u ah ama kooxdaasi gaar u ah loo yaqaano quinolonska baaritaanka markii la sameeyo kadib haddii la helo germs gooni ah oo loo aaneynayo inuu keenay caabuqani waa in lagula tacaalo daawada shaqada ku leh germskaasi qaasatan haddii uu germska E. coli uu yahay haddii uu maaragtay kuwa galmada qofka uu ka ama dhanka galmada kaaga yimaaday ay tahay oo dhacaankii wixii waa in la daaweeyo haddii uu marka virus uu yahay oo sida mumpska camal aan hor usoo sheegay daaweyn badi uma baahno wuxuu u badan yahay waxaa waaye daawooyinka bararka ka dejinaya daaweyn xanuun baabiye ah iyo maaragtay in uu qofkii nasasho badan uu helo sidoo kale haddii marka isku darka yihiin bacteria virus uu yahay cudurkani labadaba ay isku dar yihiin waxaad u baahan tahay labadaba qalajin aad qaadatid daawooyinka bararkana aad qaadatid أصحابي وحسوا قرني قبل يقولون برنامج كفلا ميل والباجوكتين channel كاكيلو وين subscribe like شاركة وحنا درجينا هسه